waxa ugu horeeyay waa iibsigiisa $500,000 ah, macna ahaana dhigay rikoorka adduunka. intii uu ciyaarayay Juventus, Ronaldo waxa uu helay boorso lacag ah, heshiis $117 milyan ah, sidaa darteed waxa uu ku qasbanaaday inuu iibsado shay waali ah, waana sababta uu u iibsaday saacadda ugu qaalisan taariikhda Rolex. waxa uu ku bixiyay $500,000 si uu u helo saacaddii ugu qaalisanayd ee Rolex abid la sameeyo. GMT Master 2 waa diamond toos ah, waa saacad cajiib ah oo leh 18 dabool oo dahabka cad ah, gebi ahaanna lagu daboolay diamond tayo sare leh oo aad qiyaasi karto. kadib markii Ronaldo uu gatay, qiimaha saacadda ayaa cirka isku shareeray oo noqday mid ka mid ah dahabka ugu xiisaha badan suuqa. laakiin tani waxba kama ah marka la barbar dhigo waqtigu $4 milyan ku qarash gareeyay xaaskiisa Georgina Rodriguez. sheekadu waxay bilaabatay markii Georgina oo isticmaalaysa Instagram-ka ay aragtay qoraal ka yimid Carter kuna saabsanaa faraanti diamond ah oo si gaar ah loo habeeyay. waxa ay ka tagtay faallooyin ay ku muujisay sida ay uga heshay. Cristiano Ronaldo ayaana kaga faa'iideystay shukaansigiisa markii uu arkay faallooyinkeeda. waa uu garanayay waxa la sameeyo. waad qiyaastay. waxa uu u soo iibiyay Georgina isla faraantigii diamond-ka ahaa ee ay ku aragtay Instagram-ka. fargashigani waxa uu ku kacay $872,000, laakiin taasi kaliya maaha. waxa ay sidoo kale heshay $60,000 oo Patek Philippe saacad ah, $50,000 oo jijin diamond ah, iyo $140,000 oo dahabka Louis Vuitton oo la qaabeeyay ah. aad ayaan u hubaa in tani ay tahay habka